الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن اقتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله الله تبارك وتعالى قرآن كريم كوحي الأولى هي ربك عابدا الدنيا هو ربك عابد إلى جيريدو كاغتمات شو معدي هوري رمضان ودن بيسي waxaan kaga soo hadalay in laga marmaan tahay ruuxa muslimka ah inuusan cibaadada ilaahay joojinin ee uu wado siyaadiyo ilaa geeridu uga iimaanayso ilaahay kala kulmayo tabaaraka wa tacaala waxaan soo sheegnay inuu alla eedeeyay tabaaraka wa tacaala dadka waxoogaa yarkii camalka intay la yimaadaan haddana goynayo oo joojinaya arrintaasina waa arrin laga fiican yahay aan habboonayn nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ku yidhi cabdullaahi ibni camr ibni caas cabdullaahiyow hebel oo kale ha noqonin habeenkii wuu istaagi jiray oo tukan jiray kadibna wuu ka tegay isagoo kale ha noqon buu nabigu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenkii salaaduu tukan jiray haddii xanuun ka tagsiiya ama wax kaliya sabab kale ka tagsiiso maalintii buu tukan jiray 12 ragcadood salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi ruuxii ka seexda xisbigiisa habeenkii uu akhriyo ruuxii ka seexda hurda ka tagsiiso oo akhriya inta u dhaxaysa salaada fajrka iyo salaada duhurka inta u dhaxaysa akhriya waxaa loo qorayaa sidii isagoo habeenkii akhriyay oo kale nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xataa sunna hadduu bilaabo inuu daa'imo wada buu jeclaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ummadiisu u jidaynayaa innagaana layna barayaa inaynu dhaqanka nabigeenna ka qaadanno salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dadaalkii la sameeyey bisha ramadaan in la sii wado oo la sii kordhiyo waa ma aha in dib loo noqdo asbaab baa jirta marka iyo wasaa'il inoogu kaalmayn karta in aynu horay u soconno inaan dib u noqonin oon ilaahay taacadiisa daa'imno waxaa ka mid ah oo qodobka koobaadi uu yahay alcaziima alsaadiqa wathabaat yacni inaad la timaado go'aan run ah qalbigaaga go'aan dhab ah inaad kala timaado go'aankana aadan ka laabanine aad ku sugnaatood ilaaliso nabigeennu labadaa qodob buu ilaahay weydiisan jiray allah waxaan ku weydiisanayaa arrinka taacada iyo khayrka inaan ku sugnaado go'aan adag oon ka noqosho lahayn inaan ula imaadana allah waan ku weydiisanayaa saasuu dhihi jiray nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh alimaam ibnu lqayim caleyh raxmatullaahi wuxuu leeyahay bini aadamka dhammaystirnaantiisu waa labadaa qodob weeye go'aan inuu leeyahay iyo go'aankiisii inuusan ka noqonina ku sugnaadoo ku socdo haddii uusan ruuxu go'aan lahayn waa naaqisoo waa dhiman yahay hadduu go'aan leeyahay laakiin go'aankii uusan ku sugnaanayninna waa dhiman yahay laakiin labadaasi markay ishelaan waxay keenaan buu leeyahay oo ka dhashay midho aad u qurux badan iyo xaalad dhammaystiran wuxuu leeyahay ibni aadamka sidiisaba labadaasoo kulma ayaa liibaanta sabab u ah waxa bini aadamka looga yimaadana waa uun labadoo uu dayacay ama mid ka mida uu dayacay casiimada iyo thabaadka halkaasaad ka garanaysaa nebiga isku lamaanin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh qodobka labaad ee kugu kaalmayn kara ilaahay taacadiisa inaad ku sugnaatoodan dib u noqonin waxa weeyaan al-iqtisaadu fi al-ibaada cibaadadaada waxaad ka dhigtaa mid dhexdhexaad ah nafta
haddaad saarto culaysaysan xamili karin waa daalaysaa mana celin kartidoo way go'aysaayoo wixii oo dhan way ka cararaysaa waxayna kari karin ha saarin inay dib u gorotona ha ka ogolaanin laakiin iqtisaad iyo dhexdhexaad cibaadadaadu ha noqoto waa manhajkii ambiyada waa dariiqii rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh caaisha waxay leedahay nebi maxamed waxaa la weydiiyey sal alla alay wasalam camal la sameeyo keebuu ilaahay ugu jecel yahay markaasaa waxay tidhi kala daa'imo nebigu wuxuu ku jawaabay kala daa'imo haba yaraadee nacam 2 ragcadood 3 ragcadood oo habeenkii aad tukato intaadan seexanin ama intaad soo kacdo aad tukato witirkaagii ah ayaa waxay ilaahay agtiisa ka khayr badan yihiin allana ka jecel yahay hal bil intaad nafta iska qaadooda acmaal badan samayso haddana inaad goyso camal la daa'imay haba yaraadee kaasuu ilaahay ugu jecel yahay tabaaraka wa tacaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam isku kallifa oo sameeya camalka wixii aad kari kartaan waxaydaan kari karinna haysa saarina maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala ka noogi maayo inuu idin abaal marinayo ilaa idinku aad ka noogtaan camalka samayntiisa markaad adigu camalka joojiso ayaa abaalgudkiina istaagaya laakiin intaad wado haba yaraatee ilaahay abaalgudkiisu waa soconaya tabaaraka wa tacaala nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi taas ayuu inoo dardaarmay maalin maalmaha ka mida ayuu wuxuu soo maray gurigiisuu soo galay xaaskiisa caaisha u soo galay nebigu sal alla alay wasalam haweenay baa la fadhida wuxuu yidhi tani tumay ahayd rasuulka ilaahay waa heblo weeyo habeenkii oo dhan bay soo jeedaayo waa islaan lagu sheekaystooo khatar ah markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam war camalka waxaad kari kartaan la imaada ilaahay ka daali maayo camalka inuu abaalgud idinka siiyo ilaa idinku camalka aad joojisaan maalin maalmaha ka midana wuxuu soo maray xadhig ku xidhan 2 tiir dhexdooda masaajidka dhexdiisa war xadhiggani muxuu ahaa zaynab ayaa cibaadaysato oo markay daashoy kici weyday bay xadhiggaa cuskataa markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam fura xadhigga war markaad xiise iyo nashaad haystaan cibaadaysta markay naftu daashana nasiya ayuu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh diinkani waa fudayd ninkii isku taagoo isku daya inuu ka qaalib noqdana asagaa jabi kama qaalib noqon kartid sidaas daraaddeed buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam dhadhaweeya hadafkana asiiba wax bishaaraysta waxaad kaalmaysataan subaxdii inaad ka lahdaan iyo inaad galabkii aad carrawdaan iyo shay yar oo ka mida guuraha kalkaalmaysta xilliyada fursadaha ah ka faa'iidaystoo kaalmaysta buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed camalka hal mar intaad nafta isaga qaaddo aad goynayso waxaa ka fiican mid yaroo joogta oo od weligaa wadayso asbaabta kuu kaalmaynaysa waxaa ka mid ah inaad ilaahay qur'aankiisa akhrintiisa daa'imto macnahana aad dhuuxdo inaad fahantana aad isku daydo maxaa yeelay wax qalbiga hagaajiya cibaadada ilaahayna kuu dira qur'aanka ugu muhiimsan markaad akhrinayso aayaadka qur-aanka fastabiqu lkhayraat war khayrka u degdega saaricuu tartama saabiquu yacni waxa weeyaan dadaalka lagu farayo qur-aanku dhinacyo fara badan buu nafta ka tarbiyaynayaa waa kii barbaariyey jiilka taariikhda bini aadamka ugu qiimaha badnaa jiilkii saxaabada ridwaanullaahi calayhim qur-aankana tarbiyeeyey oo madrasada ay ka soo baxeen buu ahaa naftooduu layliyey quluubtooduu islaaxiyey cibaadaadka iyo taacadii laga warramay ay samayn jireen qur-aankan ayaa ka soo saaray sidaas daraaddeed qur-aanka akhrintiisa iyo fahankiisa badso si aadan gadaal u noqonin horay buu kuu wadayaa inna hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam hogaankuu kuu qabanayaayo horay buu kuu wadayaa gadaalna waa kaa riixaya taacada ilaahay buu kugu riixaya tabaaraka wa tacaala waxaa ka mida wasaa'ishaasi alikhaaru min tadakuri lmowt inaad badiso xusuusta geerida iyo noloshani inay dhammaanayso iyo arrinta laga maarmaanka oo ah inaad rabbigaa la kulmi doonto wakhti dheerna aadan haysanin
waxaad meesha ka saartaa waxa la yidhaahda yididiilada dheer iyo waad sii noolaan doontaa. waxa kullu goynayaba waxa weeye waqti baa kuu sii laaban. waxaa lagu yaqaanaa ruuxu haddii uu caado ka dhigto yididiilo dheer iyo waad sii noolaan doontaa iyo 20 sana kuu laaban iyo 10 sana kuu sii laaban iyo waqtigu wali weeye iyo dhalinyaro tahay iyo wali xoog baad leedahay ma weelada iyo filinkaasi intuu kuu daaran yahay daacada Ilaahay tabaaraka wa tacaala wax badan oo kamida waad seegi waxaasa ku mashquulinaya. laakiin markaad qaadato tiraahdo war galab baan joogaa bari ma gaari doona waa gacan uur ku jirta. waaba bariyay talow gabalkuma ii dhici doona waa gacan uur ku jirta. shaki malaha waxaad leedahay saacadaha ka faa'iideyso jaaniskana ka faa'iideyso hadda lagu heli karaa geerida kugu imaan karta si kada abaad u dhiman karta cudur inuu ku qabto laazim ma aha in lagu sugana laazim ma aha si kada abaad ku dhiman karta war geeridu ha ku timaado adigoo taaca Ilaahay ku jira tabaaraka wa tacaala. sidaas daraadeed baa nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ummadiisa aad wuxuu uga digay yididiilada dheer oo waa lugooyo xaqiiqana ma aha yididiilada iyo geeridana mar walba geerida sukaysta nabigu sidoo tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. qorshe waxa ku degan 20 sano ah yaa guriyaad dhisaysaa shirkadaad hagaajinaysaa kursi baad raadinaysaa caruur iyo reeraad tabcaysaa 20 sano 10 sano 5 sano qorshayaal baa ku degan ileen geeridiiba waaba usbuuc kadib way ka sokaysaa shaki male. sidaas daraadeed ha kadsoomin hana khaldamin nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi badiya geerida xusuusteeda badiya. markaad xusuusteeda badisaan markay nolosha naftu ay adduunyadu ku qaadato oo ku ballaarato ku soo xiriiriyay xusuusta geeridu. markii noloshu xiriiri kugu noqoto geerida xusuusteeda badatana waa sacbay ku noqon waa daawada nolosha weeye inaad geerida xusuusteeda badiso. yididiiladana ha dheeraysanina soo gaabso. asbaabta kalifi bay kamid tahay inaad taacada Ilaahay daa'imto oo aadan joojinin. waxa kamid ah walaalayaal oo qodobka shanaadi uu yahay suhbatul akhyaar dadka wanaagsan iyo akhyaarta dadka ahlu taacada ah dadka masaajida camira dadka safafka hore u tartama dadka quraanka Ilaahay akhriya dadka cilmiga u fadhiya dadka suhada dadka la saaxiib ayaga la fadhiiso la yashqa jalisuhum saaxiibkood marnaba ma guul daraysto ruuxii la fadhiistay marnaba kuma hungoobo mana guul daraysto waa kuu nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi alladina idha ru'u dhukira Allah markii ishaadu qabato ayaad Ilaahay xusuusata tabaaraka wa tacaala. dad waxa jira wajigoodaba aad ka akhrisanayso Ilaahay taacadiis oo markay ishaadu ku dhacdaba aad ku xusuusinaya Allah iyo aakhiro iyo xaq Ilaahay taacadiisa ku xusuusinaya. kuwa way kuwa laga hadlayo suxbadoodu waxay keentaa inaad ayagoo kale isku daydo inaad noqoto inaad ka faa'iideysato inaad ka dhimbil qaadato inaad ka dhuxul qaadato inaad ayagoo kale isku daydo inaad noqoto. saas daraadeed baa quraanka kariimkuna aad uga hadlay suhbatul akhyaar aad uga digay murafaqata ahli suu dadka xunxunka ha la saaxiibin batalada caajislayaasha kuwa caajislayaati cagjiidka ah hadaad la saaxiibto dib un baad u guran. akhyaarta khayrka u degdegaysa markaad la saaxiibtana ayagaad la mid noqon waxun baad ka qaadan. sidaas daraadeed saameynteedu leeyahay nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sooma dhihin ka fiirsada cidda aad la saaxiibaysaan ruuxu saaxiibkiibuu ku diin yahay oo la diin yahay oo la dhaqan yahay oo la meel yahay aakhira xataa. sidaas daraadeed akhyaarta iyo dadka khayrka u tartamaya la saaxiibo iyaga la soco wax la qaybso fadhiyadooda ku dadaal insha Allah taala sabab bay u noqon kartaa inaadan khayrka goynin oo aad wade. waxa kamida oo wasiilada lixaadi ay tahay at-ta'arruf ala siyar as-sahaba was-salaf as-salih. hadaad akhrido salafkii ridwaanullaahi calayhim saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ardadoodii iyo taabiciintii dadkii Ilaahay doortay jiilkii khatartahay cajabta lahaa hadaad noloshoodii akhrido siirada laga qoray warkooda aad akhrido qisaskooda markaad akhrido
waxa laga duubay aad dhagaysato saamayn weyn bay kugu samaynaysaa. qur-aanka kariimkana asaaliibtiisa waxaa ka mida bini aadamka uu u amro, bini aadamka uu u saameeyo qasaskaa ka mida, qisooyinka duruus baa ku jira. markaad akhrida abubakr الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه صديق هذه الأمة، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سائر الصحابة كيف كان عيشهم. هبينكي ودوا تاغنايين، habeenna waa taagnaayeen, maalinna waa jihaadayeen, ilaahay taacadiisay ku sugnaayeen. waa miduu leeyahay cumar ibnu khataab radiyallahu tacaala canhu wa ardaa, 3 arrimood haddayna jiri lahayn noloshiiba dhadhan ma yeelateen. 3daana waxaa ka mida habeenka istaagga la istaagayo, wax walba uga qaalisana ridwaanullaahi calayhim. mid baa istaagayood arkaysa qur-aanka habeen buu khatimayaa, cajaa'ib. habeenkii salaad buu ku soo jeedaa, maalintiina taacada ilaahay buu u taagan yahay. waad la yaabaysaa si yarkooda markaad akhrido wax badan baa iska kaa bedelaya. akhriso maxay ahaan jireen, dhegayso seebay u noolaayeen, seebay rabbigood tabaaraka wa tacaala u qadarin jireen, seebay aakhara iyo kulanka alle tabaaraka wa tacaala ugu diyaargaroobi jireen. saamayn weeye, darsi muhima weeye. sababta ama wasiilada toddobaadii waxa weeye walaalayaal, inaad ilaahay barido tabaaraka wa tacaala oo aad weydiisato inuu khayrka iyo taacada kugu sugo. dibu noqodka iyo khayrka inaad ka laabatana kaa ilaaliyo. nabigeenna muxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh ducaduu ducaysan jira waxaa u badnayd inuu yidhaahdo allaha quluubta rogrogow qalbigayga diintaada ku sug, allaha quluubta gedgediyow qalbigayga taacadaada u gedi oo xagga taacada u rog. caaisha weydiisay rasuul ilaahayow, ducadaa unbaad badisaaye maxaa ku jira, leesh? markaasuu nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam, caaishoy, quluubta addoommadu waxay ku jiraan 2 faroodoo ilaahay farihiisa ka mida, dhexdooday ku jiraan. siduu doonuu ilaahay u rogrogaa tabaaraka wa tacaala. immisaa qalbigiisa khayr iyo iimaani ka buuxday oo inta iimaankiiyo khayrkii laga rogay gaalnimo lagu rogay, walciyaadu billaah. immisaa qalbigiisa gaalnimo iyo shahwo iyo shubuhaad ka buuxday oo inta laga rogay ilaahay iimaan iyo khayr iyo taaca uu ku rogay. immisaa fujuur iyo macaasi iyo shubha iyo shahawaad quluubtiisa ka buuxday oo ilaahay intuu ka gadiyey tabaaraka wa tacaala taaca iyo khayr iyo wanaag jacayl ilaahay uu rogay tabaaraka wa tacaala. sidaas daraaddeed allah hadduusan kuu kaalmaynin waxba ma qabsan kartid. ducadiisii waxaa ka mid ahayd, ilaahayow ii kaalmee oo cadowgayga korkayga ha u kaalmaynin oo korkayga ha iga kaalmaynin. ilaahayow ii gargaar oo cadowgayga ha iiga gargaarin. ilaahow ii dhagar oo aniga ha i dhakrin oo cadowgayga ha igu sallidin. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mucaad ibnu jabal ayaa wuxuu ku yidhi, mucaadow waan ku jeclahay, mucaadow waan ku jeclahay, dardaarankan hoo waan kuu dardaarmayaa. salaada markaad ka bax salaada gadaash, salaad kasta gadaasheeda ducada ku ducayso, allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrika wa husni ibadatik. ilaahu iigu kaalmee dhikrigaaga, shukrigaaga, cibaado wanaagaaga, ilaahu iigu kaalmee. dadaal allana kaalmayso. qodobka xigay wuxuu yahay oo sideedaad oo wasiilada sideedaad ee kuugu kaalmayn karta inaadan cibaadada dib uga noqonin, albucdu can ilmacaasi, inaad dembiyada ka fogaato oo dembiyada iska ilaaliso. maxaa yeelay dembigu markaad ku dhacdo qalbigaa madoobaanaya, qalbigaa taxalaysanaya, qalbigaa kharrimaya. qalbigu hadduu taxalaysana taacadii u dhadhami mayso, waa khadhaadhaanaysaa, nuurkiibuu waayayaa, dibugarashuu bilaabayaa, socodkii ilaahay xaggiisa uu socday baa ku cuslaanaya. dembiguna dembi kaluu u jiidaya, taacadiina waa laga qadinaya, waa laga xirmaaninaya. quluubtu mar hadday fasaadana addoonka waa u dhammaatay. sidaas daraaddeed dembiga ka fogow, daawo weeye. haddaad aragto addoon dib u gurtay, dembi baa halkaa ku tuuray. haddaad aragto addoon horay u socda
oo noloshiisa aakhiro u sii siyaadaya qaybta dambe khayr u sii siyaadsanaya halka waxa gaarsiiyay taacada ilaahay oo iimaanka kobcisay sidaas daraadeed dunuubta ka fogow qolobka sagaalaad baa wuxuu yahay iyo wasiilada sagaalaad dambigu hadduu ka dhaco dambi dhaaf weydiiso tawbad ilaahay u soo laabo qalbiga sifee waa la daahirinayaa waa la soofaynayaa waa la hagaajinayaa nuurkiisii baa u soo noqonaya awoodiisii buu soo ceshanaya wax badan oo khayr ilaahay ku waafajinaya carabkaagu markuu ilaahay dhikrigiisa iyo istighfaarta barto quluubtu waa hagaagaysa ilaahayna wuxuu ku furayaa abwaab aan la koobi karin oo khayraad iyo taacada ilaahay ku furaya tabaaraka wa tacaala nacam dambiga marka hore iska ilaali haddaad ku dhacdana ha isku halmaamin hadaa'imin ha ku madax adeygin soo laabo rabbiga u soo laabo qoomamood oo ka xumo wixii ka dhacay markaas ilaahay tabaaraka wa tacaala qalbigaaga wuxuu siinayaa ladata alcibaada cibaadadii baa ku dhadhami khayrkii baad dhadhansan wanaagii baad macaansan xumaantii baa ku qadhaadhan oo ka xajiimoon waa goorta qalbigaagu hagaago tawbadiyo istighfaartu islaaxiso sidaas daraadeed horay u soco oo gadaal ha u noqon meel fiican baad soo gaadhay ramadaan ee gadaal ha u laabanin u fiirsan nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi ramadaan ruuxii soomay 6 beri oo shawaal ka midana ku daray oo raaciyey sanadkoo dhan isagoo soomay buu ka dhigan yahay soonkii ramadaan lama dhammaanine ramadaan kadib soom baa sii jira bil walba 3 beri ka sooma buu nabigu sallallahu alayhi wasallam isniinta iyo khamiista usbuuc walba ka sooma salaadii habeenkii ma dhammaanin haddaad 11 ragcadood iyo dhowr 20 ragcadood tukan jirtay ugu yaraan 3 ragcadood ha ka tegin abu hurayra siduu nabigu u dardaarmay intaada seexanin witirkaaga tuko salaadii habeenkii ma dhammaanine waa da'biga iyo dhaqanka saalixiinta lagu yaqaan way quraanka kariimku sidoo tilmaamay quraan akhriskii ma dhammaanin sadaqadii ma dhammaanin ila aad rabbiga kala kulantana inaad istaajiso ama dib u noqoto maba ahaba ma rabtaa in rabbiga ku jeclaado ma rabtaa inaad radihiisa hesho ma rabtaa in ilaahay ku xifdiyo adduunyo aakhira ma rabtaa taacada ilaahay horay ugu soco dib ha u noqon rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala xadiithul qudsiga adoonkaygu iguma soo dhawaado waxaan ka jeclahay wixii aan ku waajibiyay wax ilaahay loogu dhawaado wuxuu ugu jecel yahay cibaadaadka waajibka ah waajibkii markuu guto adoonku wuxuu rabbi leeyahay adoonkaygu ka zuuli maayo inuu igu soo dhawaanayo cibaadaadka sunnada ah soonka sunnada ah salaada sunnada ah sadaqada sunnada ah cibaadada ziyaadada ee waajibka ka siyaadsan inuu igu soo dhawaanayo ka zuuli maayo ilaa aan ka jeclaado buu alla leeyahay tabaaraka wa tacaala markaan jeclaadana waxaan u noqonayaa indhaha uu wax ku arkayo dhegihii uu wax ku maqlayay gacmaha uu wax ku qabanayo lugaha uu ku soconayo maxaa laga wadaa waan ilaalinayaa waan xifdinayaa waan u gargaarayaa waan isgarab taagayaa adoonkaasi waa adoon maxruus ah oo ilaahay ilaaliyay way wuxuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala hadduu wax i weydiisto walle waan siin hadduu iga dalbado inaan arrin ka magan ka nabadgeliyoon ka badbaadiyana walle inaan badbaadin buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala natiijada maxaa lagu gaadhayaa laa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil cibaadaadka sunnada inaad sii siyaadiso ood waddo oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhiso alla waa ku jeclaaday ilaalintiisa wax walbood rabtana waad heli aakhariya adduunba sidaas daraaddeed horay u soo socda camalkaagii ramadaan aad samaysay in la aqbalay calaamad waxa u abay culimadu yiraahdaan ramadaan kadib xaalkaagu seebuu noqday warma meeshii baad ku noqotay hadaad laabatay waxay daliil u tahay inaan camalkaagii la aqbalin ramadaan kadib haddii xaalkaagu hagaagay ood fiicnaatay waxay daliil u tahay dadaalkii ramadaan aad samaysay in laga aqbalay
sidaas daraaddeed horay u soo socdo rabbi baynu la kulmaynaa mana foga wakhtiga rabbi lala ballansan yahay wakhti fog ma ahee dadaalka wada ilaa tii ilaahay idinka timaado wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin ya bna aadam cish maa shi'ta fainaka mayit waaxbib man shi'ta fainaka mufaariquh wacmal maa shi'ta فإنك مجزي به وكن كما شئت فكما تدين تدان صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تستعملنا في طاعتك حتى نلقاك اللهم استعملنا في طاعتك حتى نلقاك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكون اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم وحد صفوفهم اللهم ارفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنهم الأعداء اللهم ادفع عنهم الأعداء اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاتهم يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاتهم يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الأعداء وارفع عنا الفتن يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة